بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عنا وناكسن دقيستيال رمضان مبارك كسود هذا برامج كحولك سياسة جنالك ورعد ميديا وادنا وبرتين معلوم البينات حبود إنسو مرينو برامج حسب بدن وكان لا يدعو إنك عالم كأيو كوا سومالي سامين كله برامج كنا حولك سياسة وحنا ما أنت كجهل الدونا dowladda Turkiga ayaa ciidamo Turki ah u soo dirtay gudaha Soomaaliya iyo hub culus oo noocyo kala duwan ah sida taangiyada, beebiyaasha iyo diyaaradaha dagaalka u soo dirtay gudaha Soomaaliya. Haddaba muxuu yahay qorshaha dowladda Turkiga ay ka leedahay hubkan culus ee hadda markaas soo gaarsiiyay? Waa halka ay ciidamadani ay saldhigyada military ay ka sameysteen. Sidoo kale ciidamada Turkiga ama dowladda Turkiga ayaa ciidamada Soomaaliya ugu yaboohday hubka culus oo markaasi si ay dalka u hanato. Haddaba hubkaasi muxuu yahay? Sideese Soomaaliya waqtigan uga faa'iideysan kartaa taageerada military ee ka imaanaysa Ankara? Haddaba muxuu yahay yoolka ama hadafka dowladda Turkiga ay ka leedahay Soomaaliya in barnaamijka kaga hadli doona hadduu Ilaahu dila uu raali ka noqdo iyo dowladaha laga yaabo in ay arrintaasi diidan yihiin. barnaamijkeenan qodobkaas ayaan guud ahaan uga hadli doonaa ayna ku bilownay Turkiga ayaa u muuqda inuu sii xoojinayo kaalintiisa military ee Soomaaliya iyadoo toddobaadkan magaalada Muqdisho ay soo gaareen maraakiib sida qalab iyo hub military. Tallaabadani ayaa qayb ka ah iskaashiga dhinacyada amniga ee u dhexeeya ama ka dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya. Sidoo kale wararku waxa ay sheegayaan in cutub gaar ah oo ka tirsan ciidanka Turkiga la dejiyay deegaanka Qorilow ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaa oo ay ka wadaan howlo la xiriira tababar iyo taageero amni. Arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa kororka joogitaanka iyo taageerada military ee Turkiga ku leeyahay gudaha Soomaaliya. Dhanka kale, maraakiib dagaal oo hordhac u ah kuwa shidaalka ayaa iyana soo gaaray si ay dekedda Muqdisho uga sugaan ammaanka maraakiibta imaan doonta. Dhaqdhaqaaqyadan oo ay dowladda Turkiga wado ayaa ku socda. Wararka waxa ay sheegayaan sidoo kale in dowladda Soomaaliya xalay mar kale dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ka dejisay gaadiid dagaal oo sida hubka culus qaybihiisa kala duwan. Lama xaqiijin ilaa waqtigan noocyada ay ka kooban yihiin hubkaasi, laakiin waxay wararku sheegayaan ama loo badan yahay in ay ku jiraan baabuurta konteenarada ah iyo waxyaabaha culus qaada ayaa la arkayay iyagoo jiidaya hubkan bartamaha caasimadda Soomaaliya. Laakiin su'aashu waxay tahay hubkani ma loo isticmaali doonaa nabadeynta Soomaaliya iyo in lagu adkaado kooxaha ka soo horjeeda Soomaaliya ama mise guud ahaanba arrimo siyaasadeed ayaa loo adeegsan doonaa? Waa su'aalaha ugu weyn ay dul hooganayaan hubkan iyo ciidankan cusub ee soo gaaray gudaha dalka Soomaaliya. Xogta aan helnay waxa ay sheegaysaa in ciidanka Turkiga dhawaan Muqdisho la keenay ay ku hubeysan yihiin dabaabaadka dagaalka, taangiyo, madaafiicda culus ayaa saldhigyo xooggan ka sameystay deegaanka Qorilow oo u dhexeeya Warshiiq iyo Jabad Godone. Ciidanka dalka Turkiga ee dhawaan Muqdisho la keenay ayaa ku hubeysan dabaabaadka dagaalka, taangiyo, madaafiic culus ayaa saldhigyo xooggan ka sameystay deegaanka Qorilow oo u dhexeeya Warshiiq iyo Jabad Godone ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidankan ee Turkida ah ayaa la xaqiijiyay inay qayb ka qaadan doonaan dardargelinta dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Sidoo kale ciidankani ayaa markaasi wata hubka culus oo aysan horey u haysan jirin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa sidoo kale dhinaca hawada ka taageeri doona, gaar ahaan F-16 iyo 3 nooc oo kala ah TB2, TB3 iyo T-129 Attack ah. Gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dhawaanahan dhiilo colaadeed markaasi fulinayay waxaana muuqata in uu Soomaaliya ka gudbay loolanka Shabeellada Dhexe. Laakiin su'aasha ugu weyn waxay tahay hubkani ma loo isticmaali doonaa? Dhaqdhaqaaqyadani ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya
dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto xoojinta awoodda militari ee ciidamadeeda iyo sugidda amniga guud ee dalka Soomaaliya. Dowladda Turkiga waxay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo horumarinta ciidamada Soomaaliyeed ee kala duwan. Dhowr kun oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sida ciidanka Gorgor iyo kuwa Haram Cad ayay dowladda Turkiga Soomaaliya u tababartay, kuwaasi oo qalabeysan islamarkaana waxay ka mid yihiin hadda laf-dhabarta ciidanka ugu qalabka fiican uguna tababarka wanaagsan. Islamarkaana waxa ay iyagoo qabtay howlgallo militari oo guulo waaweyn ay ku soo hooyeen. Waxaana la rumeysan yahay haddii ciidamada Turkiga ee jooga Soomaaliya ay ciidamada Soomaaliya ku taageeraan qalabka ama hubka culus sida taangiyada, beebayaasha iyo kaaraha, iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka, ay si fudud ku hanan karaan guud ahaan xuduudaha dalka Soomaaliya, islamarkaana ay dalka oo dhan nabadgelyadiisa dib u soo celin karaan, maadaama Axis-ka ama awoodda ay u heli karaan in ay la dagaalamaan qof kasta oo ka soo horjeeda nabadda Soomaaliya ay u fududahay inay ka takhalusaan. Balse Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxay u muuqatay in ay daneyneyso in laga faa'iideysto taageerada militari ee dowladda Turkiga, oo hadda diyaar u ah taageerada militari oo ciidamada kala duwan, kuwa dhulka, cirka iyo baddaba. Dowladda Turkiga oo aad u daneynayo markaasi sidii loo horumarin lahaa ciidamada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya weli war rasmi oo ku saabsan xogaha ku saabsan ciidamadan la sheegay dowladda Turkiga ay ka socdaan oo gaaray gobolka Shabeellada Dhexe, islamarkaana dowladda Soomaaliya aysan war rasmi ka soo saarin. Haddaba wixii wararkaas ku soo kordha ama faallooyin dambe ayaana kaga hadli doonaa oo ku aadan sida Soomaaliya uga faa'iideysan karto iyo caqabadaha ku gidaaman taageerada ballaaran ee dowladda Turkiga ay ka imaaneyso. Dhegeystayaal, barnaamijkeenan xulka siyaasadda ayaa intaa noogu eg. Intaynu barnaamijkan muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan, like iyo share inaad noogu dhufataan si muuqaalka meel dheer ugu gaaro. Ramadaan Mubaarak.